ma dareenta cabsi markaad ku hadlayso luqadda Englishka ma ku dhiban tahay inaad hesho ereyga saxda ah ee aad jeceshahay inaad tidhaahdo markaad ku hadlayso luqadda Englishka muuqaalkan waxaan kugu bari doonaa hab fudud oo aad ugu hadli karto luqadda Englishka waliba si kalsooni leh muddo kooban oo 30 cisho ama 4 week ah dhamaadka muuqaalkan waxa aad ku baran doontaa xal iyo xeelado aad ku horumarin karto kalsoonidaada markaad ku hadlayso luqadda Englishka waxaan ku siin doonaa talaabooyin step by step ah oo aad raaci karto oo aad mari karto si aad aad uga tanaasusho ama aad uga soo kabato ama si kalsooni leh aad uga hadasho luqadda Englishka marka waxaanu sameyn doonaa dhowr qaybood baan qaybin doonaa week 1 iyo week 2 iyo week 3 iyo week 4 talaabooyinka aad qaadayso si aad ugu hadasho si kalsooni leh muddo kooban marka weekend koobaad waxaan ku bilaabaynaa inaad marka hore dhisto horta base-ka ama aasaaska luqadda Englishka marka afar baan qaybeynaa weekend koobaad afar baan qaybeynaa kala labaad taasoo kale soo qaybeynaa marka weekend koobaad waxaad ku bilaabaysaa luqadda Ingiriiska inaad horta inaad ku fikirto start thinking English dadkeenu badanaa markaynu baranayno luqadda Ingiriiska waxaad ku aragtaa ama neertina Soomaaliya ama dadkeena baranaya waxaad ku aragtaa qofku markuu doonayo luqadda Ingiriiska inuu ku hadlo wuxuu isku dayaa inuu maskaxdiisa madaxiisa waxa ku jira inuu Soomaaliga inuu Ingiriis u bedelo tusaale ahaan hadda wuxuu doonayaa inuu yiraahdo waqtigu waa imisadii Ingiriis wuxuu doonayaa inuu ku yiraahdo waqtigu waa imisadii ama saacadu waa imisadii marka markaad tiraahdo saacadu waa imisadii Ingiriis saacadu waa imisadii waa la fahmi karaa laakiin si mataqaana yar qurux badan maaha laakiin qofku waa inaad Ingiriiska ka fikirto halkaad ka fikiri lahayd luqadda afkaaga hooyo halkaad oran lahayd tolo maxaa lagu yiraahdaa saacadu waa imisadii waxaad Soomaaliya ka fikir lahayd ka fikir English marka waxaad ku oran kartaa what time is it ومصدي وقتي يعني هالكم مريا ساسو كروي مركا حدد لكن اسكو دايدو انا ترجمتو مر walba waxay noqonaysaa inaad samayso cabsi inaad fikirto inaad dhigito inaad hor soo saari weydo inaad ereyga heli weydo wax noocaas ay noqonaysaa laakiin isku day inaad يعني إنجليزي حق إنجليزي معناه أتكفكرته مركها تكوبات وأنا توجسو translation كأن عليه أتكفكرته ما رأيته يعني لقطة إنه هو تصميم مركها كوبات من دلوقتي نوع حوي مرة كنت أنا براتو أريد أس كواه أو حاجة ولا كيسيكا أما فريسيسكا ديلي أنا طول أري عشان طول أري واحد كاريكاتور أنا براتو تصو حكور سيديستا أنا الإنجليزي إن أول وحكة هايسو oo ma aragtay aad ereyada qaar kaana taqaano commonly used sentenceska ereyada ugu badan ama sentence ugu badan ee daily la isticmaalo tusaale imika how are you can you help me I need some water waxa soo meeray wixii kala la midka thanks welcome waxa soo meeray yani inaad taqaano ereyada noocaas oo kala ah si ay ku caawiso oo aad uga fikirin waxaas talo maxaa lagu yiraahdaa Ingiriis waxaas waad kuwaas ka taqaano barato qodobkana kooda weekend kooda wax ku dhisaysan marka hore aasaaskii base-ka luqadda Ingiriiska waa inaad hesho oo taqaano weekend koobaad qaybtiisa C waxay sidoo kale waxaan ku baran doonaa inaad naftaada la hadasho iyadna oo iyadna qaybtan C noqonaysa speak to yourself naftaada inaad la hadasho la sheekaysato topic baad soo qaadanaysaa ama mowduuc aad soo qaadanaysaa mowduucaas aad discussion ku samaynaysaa ama dood baad wax ku samaynaysaa dood waxaad ku qoraysaa waxaad akhriyaysaa tusaale naftaadu baad la hadlaysaa inta laakiin cid kale lama hadlaysid marka taasina sidoo kale waa mid kale lagu horumarin karo ku hadalka luqadda Ingiriiska way waxaan ma ahan cilmi aad xifdiyayso dibitana awraaq ku qoraysaa waa wax la doonayo inuu ka soo baxo oo maaragtay aad ku dhawaaqdo saas awoodid inaad hadal samaysaa naftaada la hadashaa waa mid muhiim ah qaybtiina markaa afraad weekend koobaad oo noqonaysa qaybta D inuu waxaan sidoo kale aynu ku eegi doonaa ama waxay tahayba inaad samayso sidoo kale inaad wax dhageysato dibitana aad ku celiso listen and repeat wala yiraahdaa waxaad soo qaadanaysaa podcast ama move film ama video ama wax kale oo aad dhageysan kartaa marka dibitana dadkaas native-ka wali dadka ka soo qaadanaysa maxay native weey native speakers-ka dadka luqadan kale ku hadla afkooda hooyo ay tahay markaad dhageysato tusaale ahaan wuxuu yiri tusaale kale wuxuu nice to meet you oo kale nice to meet you markuu dhado
nice to meet you too weeye marka intaad bows tiraahdo aad joojiso dabeedna aad ku dhawaaqdo adigoo kor u qaadaya weliba hadalka inaad ereygii ku dhawaaqdo oo aad tidhaahdo ayadna aad iyo aad u muhiima marka qaabkaasna waa qaab sidoo kale lagu horumarin karo dee ku hadalka luqadda inaad samayso practice inaad samayso lagu horumarin karo marka hadda waxaanu soo baranay weekend koowaad haddii aynu dib ugu yar noqono waxaanu soo baranay marka koowaad inaad ka fikirto horta English marka labaad inaad barato ereyada aaska u ah luqadda Englishka oo qasabka tahay inaad taqaano maaragtay multiple use sentence-ka saddex waxaan soo qaadanay naftaada inaad la hadasho afar waxaan soo qaadanay inaad listen samayso oo wax dhegaysato and then repeat aad ku celiso haddana marka dadka soo qaadanaysa marka waxay noqdaan dee dadka casharada ay bixinayaan native speakers ay bixinayaan markaas waa weekend koowaad wey weekendna saddexaad weekend labaad baan ka wadaa weekend labaadna marka waxa weeye improve pronunciation and fluency inaad maaragtay kor u qaado pronunciationka dhawaaqitaanka ereyga ama dee hadalka iyo sidoo kale fluency-ga si faseexa inaad uga hadasho faseexnimada yacni inaad uga hadasho marka ciwaankeena weeka labaad qaybtiisa koowaad waxaan kusoo qaadan doonaa inaad koobi karayso copy native speakers dadka yacni luqadda ingiriishka ku hadla ee afkooda hooyo tahay inaad koobi karayso waxaad dhegeysanaysaa native speakerska dadkaasaad dhegeysanaysaa ood ku celcelinaysaa weliba adigoo muddo wadaya oo joogtaynaya sidaad maarata aad ula qabsato ula samayso adoption mid kalena ogow wax maalin iyo laba iyo saddex la sameeyaa ma noqonayso wax adiga dhan kor kuu qaadayso oo luqadaad hagaajinayso meel walba kaa dhisaysa mada shayga la joogteeyo ee maaragtay maalin walba wax laga qabto haba yaraadee ayaa ah wax macna samaynaya oo meel ku gaadhsiinaya marka waxaad koobi garanaysaa dadka native speakerska soo qaadanaysa mawduucyo ay maaragtay inta badan ka hadlayaan oo dooda deetana waxaad isku dayaysaa inaad koobi karayso oo aad ugu hadasho siday ugu hadlayaan marka taasina waa hab kale oo maaragtay aad kor u qaadayso speakingkaaga iyo nooca weliba fluency-ga aad mataqaanaa luqadda aad kor u qaadayso waa mid ka mid a marka adigoo weliba raacaya toonkooda yani qaabka hadalku u dhacayo ay u leeyihiin inaad raacdo qaybtina B weekend labaad waxaan sidoo kale waxaan kusoo qaadanayna iyadna record yourself inaad naftaada aad duubto oo dhegaysato dabeetana aad ogaato meelaha ay wax kaaga jira ama khaladku kaaga jiro kabacdina aad kor qaado improve karayso meelaha ay maaragtay wax kaaga jiraan ee ilaa hadda aan maaragtaqaanaa aad ku liidato qof binaadamka meelo badan ku liitaa jira marka meesha aad ogaato khaladkaaga dabeetana aad kor u qaado qaybtaasi marka mawduuco kala soo qaadanaysaa mawduuc markaad soo qaadato mawduucaas aad ka hadlaysaa maaragtay markaas aad duubaysaa tusaalehaan waxaad leedahay my daily routine waxa maalin walba aan sameeyo ama caadooyinka maalin walba aan sameeyo baad ka hadlaysaa kabacdi markaad duubto dib baad u dhegeysanaysaa waxaad markaa ogaanaysaa maxaa kaa qaldan grammarka pronunciationka maxaa kaa qaldan meesha wax kaa khaldiya markaad ogaato kabacdi waxaa fudud wixii markaad ogaato khaladka ugu jira inaad saxdo ayaa markaa aad u fudud taasa markaa waa mid labaad weekendna labaad aan ku jirno qaybtiisa C sidoo kale yadna waxa weeye inaad maaragtay aad ku hadasho luqadda ingiriishka maalin walba 5 daqiiqo maalin walba isku day 5 daqiiqo keliya inaad siiso si aad maaragtay aad kor ugu qaado tusaalaha kale waxaad isku dayaysaaba quraacayga baan cunay hadda suuqi baan tegayaa waxaan doonayaa inaan waxaa soo qabto iskuulka baan ku socdaa jaamacad baan tegayaa waxaan samaynayaa taasoo kale siro fudud maaragtay aan lahaynba maaragtay waqti badan ku lumiso keliya isku dayo inuu kaa soo bixi karo waxaan hadal kaa soo bixi karo hadhow waxay ku fududaynaysaa inaad luqad ku hadli karto laakiin waxaad la aamusan tahay doonaysa luqadda ingiriiska barto haddana aanad afka kelmad ba aanad ka odhanaynin wax cilmi maaha aad maaragtay hal qaybeysa maaha oo maaragtay xifdiyeysa maaha waa luqaduna wuxuu baahan tahay ku hadal buu baahan marka ha kaa soo baxaan wax kaa soo baxaan sidoo kale qaybtiina D weekend labaad ee u dambaysa oo mataqaanaa qaybtiina D qaybtiina afraad waxaad sidoo kale aad baranaysaa intonationka and stress baa la yidhahdaa intonationka waxaa loo yaqaanaa kor u kicitaanka iyo hoos u dhicitaanka codka ereyga ama sentence-ka hadalku mar walba mar korbu yar kacaa marna hoos u dhac marka tahay inaad fahanto taas markaa ku xidhan tahay hadda anigu waxaan ku siin karaa oo dee talaaweyn marka waxaad ku xidhan tahay inaad daawato fiidiyoyo ka hadlaya oo dadka native speakers ka bixiyaan intonationka ka hadlaya inaad daawato oo dhegeysato oo codka markaa aad fahanto ay taasina ku xidhan tahay marka haddaan rikaab ku samayno weekendna labaad
waxaynu baranay kuwa horta weekend labaad wuxuu ahaa improvement and pronunciation and influence waa qaybtii ee wax ku soo qaadan marka copy native speakerska inaad copy garayso qaybta labaadna inaad record yourself naftaada inaad maaragtay duubto qaybtii siina waxay ahayd speak English 5 minutes every day maalin walba inaad ku hadasho luqadda Ingiriiska ilaa 5 daqiiqo kiina afraadna wuxuu ahaa learn intonation inaad barato intonationka ama korkaca iyo hoos u dhaca luqadda taasay ahayd weekend ee labaad weekend saddexaad markaa waxa weeye speak real life situations inaad maaragtay ka hadasho real life situations يعني xaaladaha caadiga normalka nolosha caadiga ah real life ka nolosha dhabta ah inaad ka hadasho oo maaragtay wax ka soo qaadato oo aad ku yani hadasho oo maaragtay taas oo kale marka tusaale ahaan waxaan sameeynaa qaybtina eeda week 3 qaybtina practice ordering food in English tusaale waxaad isku dayaysaa in maaragtay aad ku codceliso ama practice garayso adigoo tusaale dalbanayo cunto oo kale oo adigoo restaurant jooga ama qaaxi ama meel cunto laga cuno adigoo jooga waxaad isku dayaysaa inaad dalbato cunto inaad dalbato isku dayaysaa marka tusaale ahaan waxaad dalbanaysaa ama shaaba dalbanaysaa ama coffee ama waxaad dalbanaysaa marka waxaad leedahay yani witirka la hadlayso leedahay adoo isku dayaya luqadda Ingiriiska inaad markaa barato marka taasoo kaliya ma waxaa kaloo isku dayi kartaa adigoo iskuulka tegaya qof iskuulka ka yimid aad markaa wareysanayso ama jaamacadda ka yimid aad wareysanayso ama qof kula class aad wax weydiinayso oo leedahay ka waran maxaa la yiraahdaa maanta maxaa jiray maxaa cusbaa waxaan noocata marka speak real life situations waxyaabaha caadiga nolosha caadiga inaad ka hadasho indhaweeye marka qaybteena biin wax noqonaysaa inaad maaragtay ku biirto gurubyo ama madallo dadka Ingiriiska ku hadlaya ay joogaan sida iminka social media channelkiina waxaan soo dhignay muuqaalo badan oo ku saabsan madallo ama goobo ama websites ama apps maaragtay lagu baran karo luqadda Ingiriiska oo maaragtay toos ah wada sheegaysanaysaan marka biina waa taa qaybteena C sidoo kale waxaad yidna aad ku baranaysaa inaad ku practice garayso Ingiriiska ama aad kula hadasho dadka friendskaaga ama familygaaga dadkaas waliba qofka marka aad isku fiican tasleeda waad fahmaysaan inaad ku practice garayso ood ku daydo oo maaragtay marka aad kula hadasho ayay noqonaysaa marka weekend afraad sidoo kale sanad wax speak like native hada wax soo gaarnaa ku dambayso intaasoo tallaabooyin markaa soo samayso waxaad soo gudbaysaa inaad heer fiican ka gaadho ogowna waxaas soo sheegaya ma ahan oo kaliya wax la soo odhanayo waa qofku maalin kaliya intuu waxaas ka sameeyo uu doonayo birina inuu u hadlo sida native ku hadlama wax muddo la joogteenayaan walaalayaal oo maaragtay muddo aad ku jirayso waxaan muddo la wadina virus kama yimaadaan haddii wax yar maalin iyo bil iyo laba ay ku yimaanayaan dunida qof walba wuxuu doonayo ayuu sameyn lahaa balse waxa lagu kala tegay waxa weeye qofku inuu u samro inuu adkaysto inuu wado oo laga helo commitment iyo weli consistency qofku inuu wado ayna tahay wax ka go'an marka weekend afraad waxa weeye speak like native inaad hadasho sidii native oo kale hadasho tusaalahan waxaa sameynaysaa ama waxaad baranaysaa idiomiska baranaysaa idiomiska waxyaabaha sarbeebtaa weeye ama natural expressions waxyaabaha la taqaana naturalka ah marka tusaalahan waxaad leedahay sida caadiga ah iminka normalka waxaad oranaysaa I'm very happy aad baan faraxsanahay I'm very happy aad baan faraxsanahay taa bedelkeeda qof markuu native yahay wuxuu oranayaa I'm on the cloud 9 يعني أنا واحد شو قبل تهرب تسجلات هذا هو أساس وي سجلات وي حتى صومالهان ده واحد صوم معنا مثلا لكن ضد كان جلس ما كتشوفته إنه قف هو قف هذا فرح سوي I'm free happy قف بقول لي أسوأ كرا I'm on the cloud 9 أنا واحد دول شو جابه تهرب تسجلات أنا هوي مركا إنك صوت راح للسمارة it is easy لكن مركا للدنيا idioms لقى نديجو أما أحيانا معنا سمين معانا لقى الدنيا اللي معانا وحنا قانا يسا it's a piece of cake It's a piece of cake. هذا فضل وي. It's like a piece of cake. How was the exam? بلقنا. It was a piece of cake. تحن كسودها. It was a piece of cake. بالله يعني هذا فضل بوها. وكان يدوا قاب مالتي الله المريء نفط هذا. يقولوا كهذا في المقطع إنجليش كا. وياه. صدق كله قيبتنا اللبات weekend أفراد وعلى حكوا برا كرتها صد وبلا بكرتو. ماركتي conversation كا. ولا دمين كرتو. صار مرخر حاولين ترته Hi. How are you? هذا حلاقة يا بنات سوينا تقول hey how's going hey how's going marka waa qaab qurux badan marka والله qadii la qabsato iyo qofkan already qof markuu waxa ka soo baxaan qofka kula jooga marka wuxuu sooranaya qofkan waa qof yani kala araga oo luqad aad yaqaana laga how are you that tiraahdo it's a little boring you know waa yara boring way arts way wadu laakiin hey how's going that tiraahdo
ومركا وصلنا أو قفنا وقف لغة إنجليزية عادي قانا ما دام كلمتها استعمالها مركا تينا قدام مركا وحوي هذا الموضوع challenge yourself to speak 30 minutes every single day ما هو بس قدر نفترض إنك قاعد شو اللغة الإنجليزية صوت دقيقة صوتي إن صوت دقيقة قاعد شو حاسة ما حكى القوقعان أما مرة طبعا ده أما مرة 5 دقيقة ده لكن ويران صوت دقيقة إن تكون دايدو مالنتي اللغة الإنجليزية تكون هذا شو عامل لك مرمان marka saaxiib yar waxaas oo dhan tallaabooyin la siinaya hadaba wax qoran oo script ah oo maaragtay laakiin haddii aad weelayso oo aad ku dhaqaaqdo waa wax ku tari kara oo meel ku gaarsiin kara